السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan ardada. bismillaahir rahmaanir rahiim. halkan waxaan ku duubi doonaa cashirkeenii labaad ee qaybta baraatikada hadii la yiraahdo. cashiradeen hore waxaan ku qaadanay form handling, sidoo kale waxaan qaadanay xiliqaano sidee loo sameeyo xiliqaano information form lagu soo qoray sidee lagu soo bandhigaa browserka. waxaan kaloo qaadanay xiliqaano database-ka, waa sharaxnay sida database loo sameeyo, sida table loo sameeyo, intaba waan sharaxnay. maanta waxaan qaadan doonaa hadii la yiraahdo in database-keena data noo taala aan PHP form-keena keensano. it means browser-keena inaan keensano, sidoo kale inaan isla browser-keena aan ku xareyn karno. ma dhibadno aad u sahlan tahay. PHP waxay la mid tahay sida luqadaha kale, inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin PHP inay tahay more critical than language, luqadaha inay ka dhiban tahay. wax kastoo markay kugu cusub yihiin way adag yihiin. haddii aadan isku dayin inaad wax baraatikeyso oo aadan isku dayin goolka ma gaari doonto, mana sahlan doonto. saas daraadeed waxaa ku qasban tahay inta aad adeeg maskaxdaada fresh ka tahay habeenkii xilliga dambe oo kale saqda dhex inaad waqti badan ku celceliso kabacdi waxay ku noqonaysaa caadi sida waxyaabaha qaar aad u taqaan doo kale aqoon doontaa. ilaan maanta waxa aad taqaan shalmada aqoon marka aragto qof sameynaya ama qof isticmaalaya way kula adkeen waxa aad ku gaartay inaad isku celceliso oo kaliya. saas daraadeed anaga waxaan rabnaa marka koreyso database inaan sameysano. database-kaaga magaca doonto baxso, database-kaaga table ku sameyso, table-keena data soo gashan doonaa. kadibna waxaan rabnaa datadaas inaan kasoo aragno meesha loogu talagalay oo ah this database this time meeshan kasoo aragno. waayahay, have to create something. I have IT6 haysanaa sooma. IT6 kaas waxaan rabnaa inaan ku sameysano one table. We use an SQL statement and I create after zoom create table something called student age soma waxaan leenahay tbl student use for small to understand something. You say student id integer and then primary key same as out increment automatically not so that. and then student name. Be careful, iska hubi habkan sida u qoraysid, haddii kale aduu ka diidi doonaa waxyaaba qaar. maybe waxaan leenahay sex varchar 6 not null. somehow waxaan leenahay mother varchar 50 not null and address varchar 50 not null. sidoo kale waxaan siinayna wax la yaqaano somehow class name varchar 50 not null and then ugu dambeyn waxaan siinayna wax la yaqaano fees money somehow integer. intaas markaa sameyno we have this table-keena magacaan uu leeyahay. kadib waxaan leenahay go successfully install tbl student. waxaan noola sameeyay table loo yaqaano student. I have to add some information inaan gelino the table structure. kadibna structure-kiisa markaa waan sidaan u sameysay waxaan imaanaynaa insert. somehow waxaan gelinaynaa id-ga no need. waxaan ku hormarayaa Ahmed Abdi Ali. waxaan u aqaanaa mail. hooyadiis waxaa lahaa Awashe Adam. adresskiisa waa Hilwa. class name-kiisa waa somehow form 4 kale. lacagtiisana ku dhigtaa $120. and another one on it lakin waxaan leenahay go from person inserted hal qof aan la geliyay. if I browse this we have Ahmed Abdi Ali oo number 2 wata. information kana waxaan rabnaa inaan si toos database-kan ugu helno, database-kan aan ugu helno. haddii aad meeshan imaato waxaad haystaa this is your user database-kaaga waxaa loo yaqaanaa IT6. wuxuu leeyahay laba table. tablekan student-ga waan iska tiraynaa uma baahnin. drop
sababtoo ah for practical usage oo kaliya aan isticmaalaynay markii hore aan sameynaynay. Table-keenan student-iga wuxuu leeyahay database loo yaqaano sidoo kale wuxuu ku jira server oxidation privilege-kiisa haddii aan fiirino awoodaha uu leeyahay. Database-kan waxaa access u leh IT6 root, the username will be root. wax kasta wuxuu leeyahay username sababtoo SQL-ka ay DBMS-ka marka soo galayso username uu leeyahay. Sidoo kale wuxuu leeyahay hostname waxaa loo yaqaanaa the server name-kina waa is the local soma. all privileges-kana waxaa waaye guaranteed. all privileges-kana waa maxay guaranteed haddii aan edit ku sameyno aan dhahno privilege-kan edit noogu sameeyay dhammaan permissions-ka wuu haystaa. login information haddii aad imaato fiiri there is no password wax password kuma jiro hadda password uma baahnayn and local hostina wuu leeyahay. sidoo kale username-kana waxaa loo yaqaanaa root. you can add a new user waxaad samayn kartaa user cusub abuuran kartaa laakiin no need hadda waxaan isticmaali doonaa the default username root loo yaqaanaa. the default hostname waxaa loo yaqaanaa the local host or this IP address. local host ama this IP address saas daraadeed waxaan u baahanaa inaan kuwaas isticmaalo si connection aan u sameyno. after the connection we have to select this statement anagoo isticmaalayna SQL statement oo keliya database-kan IT6 loo yaqaana. local host sidoo kale password uma baahnin wax loo yaqaano username-kana waa root it means default username-ka waayahay. sidaas aan u bilowno horey waxaan u haysanay qaybteena PHP-ga haddii aan imaano something zam and HTTP documents waxa loo yaqaana form oo aan wax ugu baraatikeynaynin. you have to rename magaca ka bedelanayna waxaan u baxsanaynaa somehow say okay sidiisaan u ahaado for testing purposes. CSS iyo JavaScript-geena way noo shaqeynayaan. we have the index file-kan waa PHP wuxuu soo aqrin doonaa oo keliya daatada meesha noo taalo soo maaha maadaama daatada uu noo soo aqrinayo hadda daata nooma aqrinayo database-ka daata nooma taalo wixii qofka uu gacantiisa kusoo qoro oo keliya oo hal mar lasoo qoro soo gelin doonaa ayuu soo gelin doonaa. laakiin hadda maadaama aan table-kiisi baabi'inay oo aan remove garinay oo aan new table samaysanay table-kanaas cusub aan ku dabaqi doonaa waxaan kalena waa iska dhaafi doonaa. waayahay aan soo furano marka project-geena waxaan leenahay open folder and then computer-keena C drive then XA MBB HT documents the form. mar alla markaan furno formkeena waa inaad saddex shay iska fiirisaa. connection-kaaga markaad samaynaysid something called MySQL connection wuxuu u baahan tahay MySQL connection-kaaga the root the server name the password the database name. server name-ka iyo root-ka waa maxay? server name markaad sheegto database-kaaga waa inaad sheegtaa root-kaaga username-kaaga username database-ka ma ahane username server laga wadaa. sidoo kale server password SQL-ka markaad soo gelaysid waxaa sheegaysa authentication server name somehow PC magaca computer-kaaga magaciisa kala ku qoran kabacdina password la'aan aad gelinaysa sooma something called sheeg sidaas oo kale waa. initial catalog integrated security is equal to true meesha keedo kale waa. waayahay we have the index page. this is index-ka muxuu noo qabanayay information uu noo soo aqrinayo sooma sidiisa haddaan noo aado modification aan ku samaysan doonaa si shaqadeen uu noogu qabto si saxan. we have student ID student name student gender. table-keena siduu u samaysan yahay oo kale bal aan u samaysano structure-kiisa aan kusoo laabano. ID name sex voice qaybta T body-ga waxaan leenahay TH TH waxaa nooga xigaa maa loo haysanaa kan will be address sidoo kale wuxuu noqonayaa class name ugu dambeyn wuxuu noqonayaa fees ama
amount oo kale. Okay, waa u baahanahay haddii buttonka save la riixo. No need the save button. wax saveina aan uga baahanahay sababtoo anaga markan waxba ma save garaynayno daatada inaan soo akhrina rabnaa before saving in daatadan meesha inoo diyaar noogu tahay markii save la sameyno hoos daatadan aan ka arki karno hadhowti. waayahay, we don't need this PHP code kan oo dhan uma baahnin sababtoo ah daatadan waxaan kasoo akhrinaa database. daatadan waxaan kasoo akhrinaa database keena ayaan kasoo akhrinaa. intaan u gudbin ka hor saving, we have to understand something called connection. waa in haysanaa this body waxaan ugu talagalnaa inaan ku qorano codekeena ah in informationkeena aan kasoo akhrin karno databaseka, kadibna haddaan doono databaseka aan gei karno. tablekeena structurekiisa waa samaysanay. haddii aad projectigaaga hadda ran garayso, projectigeena waxaa loo yaqaanaa localhost, this is our server /form. formkan waa iska samaysan yahay laakiin informationkan oo dhammaystiran database kuna yaala aan soo aqrino. formkan oo modification aan ku samayn doonaa kanaan ka dhigi doonaa, kadibna buttonkaas marka la riixo automatically database in la geeyo, kadibna meeshaan lagu soo aqriyaan samayn doonaa. si taas aan u samayno marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay connection. marka ugu horeysa maxaa u baahan tahay you have to create connection. we have to add a new file ama new PHP file. waxaan leenahay dbcon.php. this is the dbcon.php. we don't need any HTML. waa HTML weyn sababtoo ah markaan connection bisan samaysanahay. waayahay PHP scriptigeena aan furano, kadibna waxaan xirinaynaa our PHP script. inside this waxaan ku qornaynaa PHP code. marka ugu horeysa waxaan u baahanahay the connection. waxaan leenahay $variable $con. haddii aad small u qortona small noqdona, haddii aad capital ku qortona capital. sidaas daraadeed small ku fiican isaga qoro. waxaan leenahay mysqli is equal to mysqli underscore connect. mysqli underscore connect. mysqli underscore connect keegu wuxuu qaataa laba shay. kan koowaad maxaa loo yaqaanaa the local host. waxaas dhan waxay noqon doonaa double quotation. waxaan leenahay local host comma and wuxuu qaadan doonaa the username server username kan wuxuu noqon doonaa root comma and server password. our server is no password, wax password ma laha. then comma the database kan waxaa loo yaqaanaa haddii aad inta imaato magaciisa waxaa loo yaqaanaa IT6 part time. IT6 semicolon. every segment should be semicolon. kadib waxaan leenahay if $con equal to false. haddii macnaheen $sign keena uu shaqayn doonin, waxaan u baahanahay message in lala sameeyo. haddii connection uu jiri waayo, haddii jiri waayna waxaa la dhihi doonaa error ay jiro. tusaale ahaan message keen noo soo bandhig die means shaqada hala jooji waayo. waxaan leenahay something error and connecting failed, please try again. and then waxaan ku daba qabanayna calaamadan dhibic waxaa loo isticmaalaa concatenation. then waxaan leenahay mysqli underscore connect underscore error. this function allows me to show the mysqli error, which error happened. error ka dhacay ayuu noo soo bandhigi doonaa. sidee marka loo isticmaalaa kan? waxaa jira wax loo yaqaano include. maxay ii samaynaysaa? waxay ii suurtagelin doontaa connectionkeyga meel kastoo aan u baahdo connectionkaas aan uga soo xiri karaa. tusaalaan and this is the body. waxaan leenahay something include once. after that waxaan leenahay dbcon.php. it must be
inuu ahaataa xilli yaqaano sida u qoranta waa inuu ugu qornaataa haddii sidaas u qornaawayso maxaa dhacay haddii sidaas u qornaawayso problem imaan doona problem ayaa imaan doona sidaas daraadeed aan bal rangareen oo isku dayno hadda sida uu soo muuqanayo haddii database-kan uu saxan yahay wax error ma soo bandhigayo laakiin hadduu qaldan yahay error keeni doona include one is db con.php meel allah asaga qornay sababtoo ah waxaa loo baahan yahay php tag inuu ku dhex jirto waxaan leenahay php okay kadibna waxaan leenahay include ones hadda php codekeena waan kusoo xirinay we have to get error or not haddii aan isku day database-kayga inaan qaldo ama server name-ka aan qaldo error imaan doonto tusaalaan its there's no it6 part-time s something called mysql I connected unknown database it6 in the file can mesh u yaala dbcon line-ka labaad just related could not connecting valid please try again unknown database it6 database-ka noocaasa lama yaqaano fadlan isku day nafs hadday aadan sixin problemkaas aa ku qabsan doona errorkan waxaan ka dhigi doonaa friendly sababtoo ah ma u baahnin mar walba in sidan lagu soo qoro mar walba sidan in lagu soo qoro we have to get something called waxaan ka dhiganaynaa alert oo kale aan ka dhigano waxaan leenahay something called meeshaan waxaan ku daraynaa script mararka qaar uu ka jeedaa laakiin hadda sidan hanoo ahaado connectionkeena waa samaysanay estan aan ka reebno we have this connection kadib waxaan rabnaa inaan meesha markaan joogno soo akhrino informationka u baahnayn connectionka waa kusoo darsanay waxaa ogaataa db connection waa fileka connectionka waxaa ku dhex jiro variable loo yaqaano con this is your connection okay waxaan ka bilaabaynaa marka ugu horeyso inaan soo akhrino wax loo yaqaano SQL statement-keena waxaan samaysano SQL statement waxaan leenahay SQL string ama SQL statement adiga waxaad doonto soo gaabsho is equal to select star from the tbl student sida u qorayna waa inaa u qortaa haddii kale uu kaa diidi doonaa la soco fadlan isku day markaa qoraysid inay ahaadaan sida saxda u qortid SQL statement select statement u baahna Soomaan kadib waxaan leenahay something called variable loo yaqaan result oo aan ku shubo karo SQL kaas markaad joogtay wax loo yaqaano Visual Basic ama C# ama loo yaqaano something Java waxa u baahneed statement-iga markaa qortid statement-iga waxaa la raacinaya connection Soomaa connection la raacinaya sidaas daraadeed waxaan samaysanaynaa if condition if-ka waxaan ku dhex samaysanaynaa $sign result oo la mid ah resultigeena wuxuu la mid yahay mysql I underscore query mysql I underscore query wuxuu qaataa laba parameter waxay la mid tahay cmd oo kale sida laba parameter ay u qaato statement iyo connection ay u qaato marka ugu horeysa waxaan u baahanahay $sign con our variable marka labaadna waxaan u baahanahay $sign sql statement labadaas markaas siiso kadib waa if condition haddii resultigayga oo querygaas ku jiro waxaa rabaa row in loogu soo aqriyo mysql-keyga in row loogu soo aqriyo nested if aan isticmaalana waxaan leenahay kadibna if $sign row creating variable waay variable aan abuurinaa is equal to waxaan leenahay kadibna mysql I nums rows waxa loo yaqaano waxaan leenahay mysql I underscore num underscore row mysql I underscore num rows wuxuu leeyahay isagana hal parameter oo kaliya qaataa parameterka haddii ay ku jiraan variable-ka loo yaqaan result wax haddii ku jiraan sida ku ogaan in wax ku jiraan greater than 0 it means hadduu ever ka weyn hadduu ever yahay ma la soo qoranayo greater than ever oo kaliya greater than ever oo kaliya intaas markaa marayno waxaan u baahnaa marka loop haddii ever ka weyn yahay loop la samayn doonaa loopkan waxa ku dhex jira waalka ku dhex jira
while loop aan isticmaalin sababta aan u isticmaalin waxay tahay sababtu ah while loop kaliya wuxuu ii ogolaan doonaa inaan soo fetch gareeyo informationkaas hal mar kor aan ku laabto rowgan y-ga uga baahanahay inta uga baahnin sorry inta waxaan leenahay oo kaliya if mysql numbers haddii mysql-keyga row loo soo aqriyo mysql I numbers haddii hal loo soo aqriyo waxaan leenahay noola sameeyo variable loo yaqaan rowgeygaasna hala mid noqdo mysql I underscore fetch underscore array it means variable array ahna loo soo aqriyo yaa la soo aqrinaa laakiin $result intaas markaa marayno hoos waxaa noogu xiran our php kadib adiga waana la soo aqrin information waxay noogu jiraan student id-ga student name-ka sexiga age kulligood waxay igu dhex jiraan haddeertaan rowgaas ayaa ii wada sidaa daraaddeed anigoo og meeshan ay ku qoran tahay php ayaan waxaan samayn doonaa maadaama while la joogo bracketkaasaan furtay inside this bracket waxaan uga baahanahay inaan ku qoro my selection inaan soo aqriyo rowgaas id hebelka soo aqri waxaa ku shubtaa td rowgaas waxaa ku shubtaa meel hebel sign dhihi rabaa waa inaan marka u horeysa php-dan iska xiraa calaamadan bracketka dhexdeeda waxaan xirinaynaa our php waxaa meeshan noogu xiran php-gani waa noo xiran yahay waxaa meeshaan noogu xiran php-gani ayaa noogu xiran intana waxaan ka xirinaynaa php hadda wixiiga waa wax connected ah oo isku xiran oo aan kala madax banaanayn kan hadda html information caadi aan u qoran karaa html information caadi ayaan u qoran karaa waxaan leenahay tr something call it like this kadibna waxaan leenahay td this td waxaan uga baahnaa inaan dhexgeliyo informationkeyga sidee u dhexgelinaya marka si aan u dhexgeliyo waxaan u baahanaa inaan qorno waxaan qoranaynaa marka u horeyso columnka koowaad sidee loo qorayaa waxaan leenahay php kadibna waxaan leenahay echo marka waxa lasoo bandhigaya echo aa la isticmaalaa kadib waxaan leenahay $sign rowgeyga wuxuu la mid yahay single quotation kan u horeeya student id haddii aad small u qorto uu kaa diidi doonaa after the bracket we have to close our php tag and then semicolon every statement of php statement kasta oo php leeyahay semicolon waa inaan qortaa hataa rabto markaan semicolonkan waa ka tegi kartaa echo row student id haddii aad hadda refresh dhahdo maxaa dhacay fiil inta waxaa noogu xiran our php adigoo sidaa sameyn tan iska fur tan qaybta hoose ha kaaga samaysnaato maadaama ay qaybta hoose ka samaysan tahay after tr maadaama tr teeda ay dhammaato tr teeda markay dhammaato waxaan samaysan doonaa php kadibna calaamadii haddaa ila xasuusato meeshan waxaa yaalo kan wuu ku dhex jiraa waa kan tusaale ahaan haddii aan kan doorto kan waay labadan waa iswataan maadaama labadan ay iswataan labadan oo iftaan uu sareysana ee kan wadato iftaan labaadna kan ay wadato whilekan kan uu wato waa in php loo furaa kan kadibna php-ga meeshaan laga xiraa uu hooseys keligeed ay ka xirnataa hadda wixii oo dhan compatible waay way iswataan bracketkan dhexdiisaan rabaa inaan wixii ku wada qorto waan save garanayaa bal columnkaas in la ii soo aqriyo iyo in kale 5 yes number 2 ayaa la ii soo aqriyay studentiga id-ga koowaad wax problem sameynay waqti dambe iskama luminay kanaan ku geenayo kaliya student name sexy mother address class and the fees sidoo u qoraya markuu qor student name haddii aad small ka dhigto ka diidi doonaa
haddii aad capital ka wada dhigto kadib siduu u qoran yahay database-kaaga waa inaad qortaa mother address and class name and fees. After refresh, yes, information kan meesha noogu qoran. Table kan xoogaa yar aan weynaysano, horay table kan aan u haysanay. Waxaan imaanaynaa to table small, wadis kan 75 kan aan ka qaadno, rowgeena wadiskiisa full, wadisana yes. This is our selecting from the database. Haddii aan new one kusoo darno isla meeshan ayaa noola keeni doonaa. Tusaale ahaan insert, I have to add something called Faduma Ahmed Dini, agekeeda sex genderkeeda waa female, wayid halaa Halima Ismail Yusuf, sorry, Halima Ismail Yusuf, addresskeeda waa Warta Nabada, class namekeeda waa form 3, lacagta ay ku dhigto 130. Okay, haddii aan refresh dhahno we have another one. Okay, markaan waxaan rabnaa marka save markii la dhaho in information database kana lagay maadaama hadda inta aan kusoo gelinay ayadana way sahlan tahay, waqti badan ma kaaga lumi doono, shaqo badanna ma u baahnaa doonto, kaliya waxaa u baahnaa doontaa inaad handling sameyso inaad sameyso wax loo yaqaano saving information. Si taas aan u sameyno marka waxaan imanaynaa Discord formkan aan design garaysano. waxaa noogu horeeya student ID, something called yes ID, student name, genderkan sex ayaa loo yaqaana soo ma asaga oo jira, wuxuu ka horeeyaa motherka. After this column motherka waxaa noogu xiga wax loo yaqaano address, waxaan leenahay address, namekiisa waxaan leenahay address. sidoo kale addresska waxaa inoogu xigay haddii aan imaano class name, class namekeena isagana waxaan ka dhiganaynaa drop down list oo kale, saan oo kale ka dhiganaynaa selection maadaama list aan uga baahannahay. intaan naga baabi'i select class option 2, sorry soo wada qaadanay qayb yaraan kasoo qaadanay, badan soo wada qaadan siduu u qoran yahay class select iyo kasoo bilaabnaa. waxaan dhiganaynaa meeshan, waxaan u bixinaa nameka class name, iska hubi select class, waxaan bilaabaynaa grade 1, grade 2, something called ilaa aan gashano dhowr xabo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. grade 12, grade 11, grade 10, grade 9, grade 8, sorry 09 and 08, 07, grade 06, 05, 04, 03, 02, 01. Okay,
yes waxay sameysana student id name sexy mother address and class kadibna waxay u baahanahay fees wax loo yaqaano student fee wax loo yaqaano after that waxay imaanayna the submit button 3 columns way 3 columns kan waxaan ka hormarinayaa 6 column kale halana div halana class is equal to column dash medium dash 6 kadibna waxaan siinaynaa something fees ko kale amount input type text name is equal to fees and placeholder is equal to enter registration amount fees amount and class is equal to form dash control dash small. When I refresh, we have this. Can have a column so skin mark. Can now here so skin. And I column can imagine number 4 color so skin. Ila for column btn small and btn dash small. Yes. Codeskiisana waxaa leenahay 100% 3 column oo style 3 column oo yes markii save la riixo xarana information la isoo geliyo marka designkayga waa dhameystay waxaan u laabanayaa submit button si aan u sameeyo sidee submit loo sameeyo marka haddii aad meeshan ila fiiriso dhammaantood formkan inta wuxuu ku dhex jiraa form methodkiisu uu yahay post there is no actionka mar dambe si fiican u isticmaali doonaa waxaa u sameyn doontaa page dhan oo loo yaqaan action pagekaas wuxuu qaban doonaa oo keliya shaqada saving inta lagu qorayo shaqada PHP ga la leeyahay mar alla markii page as oo save na sameeyo page kaas la ran gareyn doona laakiin hadda inside this aan ku sameysanaynaa method loo yaqaan post waayahay xagee ku qoranaysa anyone meel alla meesha dadku u qoro PHP garan wax noo soo akhrinayo ugu dhamaaday Soomaha we have to open another PHP waa inaan furnaa another PHP code ama qaybta sare ku furo ama qaybta hoose ku furo waayahay and then inside this body we need to open this first of all we have to create a PHP tag and then we have to close our PHP kadib marka uu horeyso waxaan u baahanahay inaan connection keena sameysano waxaan ku qasbanahay marka uu horeyso inaan connection keena sameysano waxaan leenahay include once bracket furnayna waxaa loo yaqaanaa db con.php our connection after the connection waxaan hubinaynaa PHP inuu noo shaqeynayo badanka key in soo riix save badanka save in la soo riix sababtoo ah fiiri meeshan badanka save wuxuu wataa name loo yaqaan save name loo yaqaan save this name u mari doona anagoo isticmaalayna posting waxay ahayd inay iga soo qaado information control ay iga soo qaado control ka bacdina meeshan ay keento waxaan samaysanayna $sign if haddii isad means click one haddii uu dhaco submit isad haddii uu dhaco $sign_post this is public variable kan wuxuu soo aqriyaa oo keliya objectiga aad dalbato waxaan dalbaday nameka loo yaqaan save haddii lacala lasoo siiyo click baa haddii la siiyo hal ii soo aqriyo dhammaan informationska textbooksyada ku jira hal ii soo aqriyo waayahay sidee loo sameeyaa condition waxaas oo soo qaadanay waxaan sameysanaynaa variables kan connection kan waxaan loo keentaa markii meesha save la siiyo leexan oo la dalbado kadib variables kan abuurana waxaan leenahay
PHP comment is something like this. Create variables can aburna ku waxaan sameysanayaa student ID $sign sida adiga loo qoro student ID is equal to wuxuu la mid yahay mysqli underscore real underscore escape underscore real escape underscore string waxaan hubin doonaa waxa meeshan soo geliyay inay string saxan yihiin real escape function waajib ma waa iska dhaaf kartaa waajib maahan waa iska dhaaf kartaa maraba marka inta sameyso waxaan u baahanahay textbookska la soo akhrinayo textbookska waxaan u baahanahay loo yaqaano ID haddii aad kor aad ID ka wuxuu leeyahay magac loo yaqaano ID namekiisa maxaa loo yaqaanaa ID loo yaqaanaa methodkana waa post methodkana waa maxay waa post si aan u sameeyo marka waxaan u baahnaa marka u wareyso our connection kadib waxaan leenahay comma $sign underscore post kadibna waxaan sheegnaa column tusaalahaan ID all of them I have to say something like this dhamaantood sidaan kale waa inaan u yeelaa sababtoo ah waxaan rabaa ID marka lasoo aqriyo namekan lasoo aqriyo kulliis oo aqriyo abubsi marka waxaan leenahay $sign student name isku hubi sida uu qoran yahay waxaan leenahay mysqli underscore real underscore escape underscore string kadibna $sign con comma $sign underscore post and name mysqli underscore escape ka khasab maahan ogow kadibna waxaan leenahay sex is equal to this problem intaas waxaa ka maqan equals waxaan leenahay mysqli real escape string kadibna waxaan leenahay $sign con comma $sign underscore post this sex sidoo kale waxaan haysanay mother is equal to mysqli real escape kadibna waxaan leenahay con comma $sign underscore post $sign underscore post mother sidii u qorneyd isaga isku hubi waxaa isku dayin inaad semicolon aad hilmaamto waxaan inoogu xigaa haddii aan kor u laabano formkeena imaano waxaan inoogu xigi doonaa mother address $sign address is equal to mysqli underscore real escape kadibna waxaan leenahay con comma $sign underscore post address sida u qoraya capital iyo small midka markaas ku qoran small anoo qoran waxaan haysanaa wax loo yaqaano class name is equal to mysqli underscore real escape string kadib waxaan leenahay con and then $sign underscore post kadibna class name somehow haddii class kaliya yahay class oo ku dhidona balance ka soo hubino siduu qoran yahay haddii aad imaato your class name drop down ku leeyahay class name loo yaqaan magaciisa maxaa loo yaqaanaa class name oo saxan yahay ugu dambeyn fees aan u baahanahay textbookskaas fees fee loo yaqaanaa namekiisa fees waaye iska hubso waxaan leenahay $sign fees variable fees is equal to mysqli underscore and real escape and con comma $sign underscore post fees semicolon. After that we have to make something insert maadaama hadda waxaan haysanaa information keeni oo qoran caadi aan u haysanaa information keeni oo sidiis u qoran ayaan haysanaa kadib waxaan sameysanaa insert statement cid la weydiinaya malaha waayo waa gubsinaya marka waxaan leenahay $sign SQL statement is equal to
double quotation insert into dbl student waana iska saxdaa dhammaan columnska waxaan gelinay marka laga reebo id-ga inta kale waxaan gelin doonaa soo ma student name sex mother address sidoo u qornaa isaga qor class name fees bal aan soo xaqiijino inuu sidaas yahay address class name fees yes then waxaan leenahay values sidee value loo siiyaa marka value marka aad siinayso waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho wax loo yaqaano variable iskaaga bas awal value waxaan qori lahay haddii aan u baahdo value waxaan qori lahay hebel aan qori lahay sooma waxaan ku dhex qori lahay meeshan anigoo dhex gelin lahay tusaalaan string hadee tahay maxamed cabdi cali aan qorayo sooma hadda ma u baahnayn aan qoro waxaa ii wada variables kasbasa magacyadooda sheegaya aan bubsin marka $sign student id and then comma single quotation $sign student name comma single quotation and $sign sex comma single quotation $sign mother comma single quotation $sign address comma single quotation $sign last name comma single quotation $sign fees and then semicolon. This is our statement. SQL statement again waa qoran maral marka SQL statement ga qorato waxa u baahan tahay kaliya in wax ka bedesho aad execution ku sameyso sababta insert statement marka la qoro parameters iyo wixii loogu talagalay la pass gareeyo maxaan u baahnayn in statement ga la query lagu sameeyo oo la run gareeyo statement ga marka si aan u run gareeyo maxaan leenahay horta waxaan hubinaynaa haddii MySQL keena connection uu leeyahay SQL statement loo baas ilaa waxa jira wax loo yaqaan MySQL query oo aad hore u soo qaatay this is the MySQL query haddii aad meeshan fiiriso we have MySQL query sooma MySQL query gan connection iyo SQL statement uu wataa waa inaan fiirinaa horta in loo soo baasay waa inaan iska hubinaa sidee u hubinaynaa waxaan leenahay if MySQL query MySQL I underscore query haddii MySQL querygeena la siiyo wax loo yaqaano the variable connection sidoo kale variable SQL statement gan haddii labadaas la soo siiyo mar haddii labadaas la soo siiyo it means waa la ragay execution la sameeyo waay if condition else amasha u baahan else tan waa maxay marka haddii lacal aan la soo baasin waa haddii lacal aan la soo baasin echo hala soo bandhigo something called qoraal u baahan in la soo bandhigo qoraalkayga wuxuu noqon doonaa string oo javascript alert waxaan leenahay alert kadib waxaan leenahay error there is an error baa jira waxaana la soo dhaho and then waxaan imaanaynaa meeshan waxaan xiranaynaa our script maadaama javascript ay u baahan tahay tag furan iyo tag xiran to that we have to add MySQL error sababta aan MySQL error ugu daraa waxay tahay kaliya waxaan rabaa inaan MySQL errorkayga ogaado nooca uu yahay then waxaan MySQL I underscore error any error oo ah kadibna waxaan siinaynaa variable oo connection sababtoo haddii aan variable connection ka siin oo ku jiro haddii statementiga lacala uu shaqeeyna maxaan soo qornaynaa if haddii shaqeyso waxaan la soo bandhigi doonaa sidan haddii shaqeysana waxaan rabnaa in loo soo qoro waxaad waad saxan tahay ama waa la save gareey information waxaan leenahay alert and transaction ama new student has been registered thanks simple and script gana meeshan oo xir
JavaScript alertigaaga meeshaas ka xiro haddii intaas ay dhacdo waaye mar alla markii intaas la sameeyo kadib waxaan u baahanahay in informationkayga meesha ugu hooseyso oo ifta hoosteeda la iga xiro my connection else markay xirmato waxaan leenahay MySQLi close and launch. waayahay hadda hawshan waa dhamaatay execution keeni iyo wixii loogu talagalay wuu noo dhamaaday aan save gareyno dhammaantood labada dhinacba kadibna aan refresh dhahno website-keena yes waxaan ka bilaabaynaa student ID-ga date looma baahna hadda waa iska dhaafaynaa student ID-ga qasab nagu maaha waxaan ka bilaabaynaa Yusuf Mire Gedi genderkiisa waxaan leenahay male sorry we don't have ugu baahnayn student ID sababta aan ugu baahnayn waxay tahay student ID automatically asaga iswadi doona sidaan wada ognahay farahan ka qaadayna saas daraadeed we don't need this and we have to remove the student ID wuxuu ku dhihi doonaa waxaa kaa qaldan ID informationka aad soo gelisay iyo information database-ka laga rabo way kala badan tahay ayuuna dhihi doonaa formkeena waa ka saaraynaa student ID maadaama student ID-ga automatically generated uu yahay isaga uu iswadaayo column-kan ugu sareeyo waan ka saaraynaa kadibna waxaan leenahay refresh yes student ID aan ka bilaabno marka Yusuf Ahmed Shire waxaan leenahay mail hooyadiis waxaa la Faaguma Gedi adresskiisa waxaan leenahay warta nabada classkiisa waa class 1 grade wuxuu ku dhigtaa lacag $12 you have to add save maxaan lagu haystaa fiiri call defined function mysql I real-escape underscore ka maqan meeshan line-ka 155 something waxaan u maleynaynaa inuu error jiro mar hadduu error jiro you have to waa inaa xalisaa errorkaas line-ka 55 Visual Studio haddaad isticmaalayso line-ka 155 oo codeka data aan qoranaynay mysqli 155 mysqli underscore real-escape underscore mar haddaa hilmaamto wuu kaa diidi doonaa okay iska hubi space-ka haddii aad hal mar ka tagto makaa yeeli doono be careful wax daataan oo lama xareyn soo maa Yusufkan oo genderkiisa meel yahay oo Faaguma daahirkeedii ay dhashay oo warta nabad degan oo grade 1 dhigta lacagtan $12 type and save yes the student has been registered student-ga waa lagu diiwaangeliyay okay what's plan mysql real-escape expected parameter 1 no need this error kan wax problem laguma hayo dhammaan waa wada baasnay laakiin hal ciladan was undivided sex kaasaan loo haystaa undivided sex ayaan loo haystaa balkan gender way yahay gender aan ka dhigno sababtoo ah name sex la dhahayo ma jiro soo daraadeeda loo xarin waayo haddaad meeshaan imaato oo aad fiiriso this is sexy sidoo kale name-ka uu wato positive kusoo qaadayan waa maxay waa kana male or female ku qoran keliya gender waayo waxaan leenahay sex sidaa daraadeed ayuu kaaga diidaya ilaan wixii oo u baahnaa ma heli doono aan inta dhahno refresh again Yusufkan waa la soo geliya waxbaa laga tegay laakiin ku celino waxaan leenahay Ahmed Daahir Ahmed mail markaan Faaguma Daahir dhashay warta nabada $12 then save yes student has been saved waana la save gareeyay laakiin mysql real-escape mararka qaar parameterskiisa ma wax ka qaladnay haddii wax qalad oo ka diidi doona information-ka waa lagu soo geliyo automatically female-ka ma soo sex-ga ma soo aqrinayo magacana ma loo soo aqrinayo labadaas aan naga qaldan si labadaas aan u saxno marka
MySQL real escape ka lagu haystaa waxaa fiirsaa MySQL distance MySQL I isticmaal haddii MySQL bas kaliya isticmaasho labadaas mar walba cilad way ku haysan doontaa sababtoo ah fiiri hadda labadan waxaa maqan kuwan ma la soo qaadin MySQL real escape it means function kan inkastoo san waajib ahayn haddii aad ka tagto aan ku qasbaneen kaa diidi doono ugu dambeyntii marka waxaan leenahay Fortune Mira Dore female Faaduma Daahir dhashay class 04 maybe 14 or kale save now it be okay first problem call function MySQL boqol konton iyo lix what is that boqol konton iyo lix markaan ugu haystaa boqol konton iyo lix MySQL I inaan ka dhignay aan iska hubino hadduu hal shay kaa qaldan yahay ma ku fasaxayo oo kaa diidi doona mar walba wuu ku celin doonaa halena control F5 Fortune hadda Fortune si saxa u diiwaangelina markaan si sax ayuu shaqayn doonaa errorka line-ka ee ka jirta ayuu kuu sheegi doonaa errorka nooca uu yahay kuma sheegayo sidaa la soco 14 undivided MySQL I really sorry mar haddii erayada ay ka qaldan yihiin oo kuwa lahay wallahi kuwaan una iska baabiino haddii hal xaq uu ka qaldan yahay ayadiya gadaal naga gashay hadduu hal shay kamid uu ka qaldan yahay uu ka fiirin si fiican markaan soo markaan MySQL I really intaan aan ku geysano dhammaantood aan ku baasti karayno si aysan waqti badan nooga lumin hagaajinteeda control V eray uma hubin karno laakiin haddii aan ku bedelno aan daano control find control R replace si saxan ayuu shaqayn doonaa markaas haddii aad doonto waa ka saari kartaa kaliya waxaad isticmaali kartaa intaan oo kaliya ayaad isticmaali kartaa xataa connectionka markaas ma baahna doonto sababtoo ah connectionkan real escape kana u baahnaan doono MySQL kasta ay haddii sheego waa in la sheego connection laakiin haddii aad kan ka saarto intaan oo kaliya lagaaga baahan doonaa intaas kaliya ayaa lagaaga baahnaan doonaa okay control F5 student yahay waa la diiwaangeliyay mid hore isku diiwaangelinaya Fortune maadaama Fortune inay halana female Faaduma Daahir grade 5 14 then save yes student has been saved successfully there is no error Fortune Mira automatically qaybta soo geliyay haddaad sababta loo diiday waxay lama soo aqrin karin haddaad sababta loo diiday maxay lama soo aqrin karin sababta loo diiday waxay maadaama aan soo aqrin karin waxaa lagu qasbanaa in la sameeyo waayahay harabna inaan ku darsano hal qayb oo ah 55 minutes waqtiga aad noogu dheer waxaan rabnaa inaan isbuuca dambe ku darno wax loo yaqaano edit sababtoo waxaan in la bedelo in la update gareeyo meesha miska oolayaan in waxaan la update gareeyo loo baahan yahay sidaas darteed maxaa lagu qasban editing in la sameyn karo editing in la sameyn karo isbuuca dambe aan ku dari doonaa almost hadda 1 hour oo kusii dhow yahay intaas ku keenana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh arday kasta waxaa looga baahan yahay inuu intaan soo sameeyo qasab ma inaad aniga raacdo your own core isticmaal kartaa PHP fara badan tahay markaad qoraysid your own design your own implementation kaaga inuu markasta adiga u baahan tahay aad isticmaali kartaa waayo intaas ku keenana mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh